بسم الله الرحمن الرحيم marka waraysa waada saxaafada waa mahadsantihiin maanta halkaan waxaan qabanaya shirka jaraa'id oo ku saabsan doorashada deegaanka Boosaasood oo markii hore loo qoonday inay biri dhacdo doorashadaas oo aan muddo badan ka soo shaqeynaynay muddo 4 bilood ah aan hawsheeda ku jirnay waxaan halkaan u qabanayaa saxaafada doorashadaas inay doorasho xalaal ahayn doorasho xaq fadhida in ahayn doorasho dastuur fadhida in ahayn waxaan ku sababaynayaa laba sabab dartood waa mid sida lagu soo xulay doorashada guddiga xubnihii maartay deegaanka oo qabaa'ilku raba inay keenaan si waafaqsan ma ahayn dad badan baa dawladdu gacanta la soo gashay oo dawladdu waxa weeye iyadoo ku soo darsatay iyo qodobka law number 7 oo la jabiyay maxaa yeelay xubnaha soo galay meesha waxa ku jiray xubno aan waxa weeye qaarkood dulum loo haysto qaarkood waxa weeye maxkamadda xataa waa soo goysay waxa taasi dheer iyo xubno waxa weeye shaqaale ah intaas oo dhan law number 7 ma ogola waxa taa ka sii dheer sida ogtihiin sharci dastuuriga ah oo Puntland u yaad dawladda hoose waxa jira wax lagu heshiiyay wax social agreement waxa beero ku heshiiyeen oo cid bedeli karta ay jirin waxa ka mid ah degmo kasta waxa loo qaybiyay degmooyinka 3 qaybood degmo A degmo B degmo C degmada A waxa loo qonday 7 xubnood in la siiyo degmada B daana 12 degmada C daana 17 doorashada biri la fiiray meesha dhacayso 9 xubnood baa fadhiyay laba xubnood saayidka waxa ku daray madaxweynaha hore oo Dr. Cabdiraxmaan Faroole markuu xukunka hayay xataa dikreta ma ahayn waa si oraal u sheegay wali waxaan maqlay markuu meesha ka degay inuu yiri laba xubnood xaq ma aha in badan baan ka dacwoonay labada xubnood madaxweyne gaas maruu Boosaaso yimi waxaan maraynayaa inay ahayd May horaanteedii shakhsi ahaan ana u tagay personally iyo dad ila socda waxaan weydiiyay in xubnaha markaan uu goostay way inay sharaxo waxaan weydiiyay in xubnaha wax dooranaya ay intee yihiin wuxuu yiri 17 weeye 9 ko sharci maaha dastuurkan saas uu ogol yahay annatii waan ku qancay taas ay u sababtay marka inaan waxa weeye is sharaxo oo marka waxa la doorasho xalaal dhacaysa anu Mareykan baan ka yimi Mareykan waxa weeye meel waxa weeye si cadaalad ah iyo si nidaam ah dimuqraasiya maartay wax lagu kala doorto Puntland markay imaanayeen inkastoo wadan xoogaa burbur jiray yahay waxaan iska maleynay inay meelaha ugu fiican ay tahay xagga doorashada waxay aad waxaan u jecel banaanka joogno meedan kala soconay sidii madaxweynaha loo doortay waxa aad ugu faraxsanayn hase yeeshee markaan sii dhaxgalay waxaan ogaaday wax badan inay qaldan yihiin wax aad u badan qaldan yihiin oo la moodo in dastuurka iyo sharciga aan la tixgelin 9 xubnood baa fariistay xalaal ma mid kale waxa weeye doorashadii aan tartanka kula jiray oo duqa magaalada ahaa xubno badan oo aniga ay dooran lahaa oo 5 xubnood ilaa meelahaas baa waxa weeye intii meeshii laga saaray waxa lagu bedelay xubno kale musharax ila tartamaya oo isagu favor ah isaga doorta marka musharax ila tartamaya hadii laba xubnood loogu daray oo saayid oo 5 xubnood aniga la yaqaan loogu daray hadii marka waxa la moodaa wax dawladdu ugu tala gashay inuu musharax soo baxo xam badan baa jirana aad u fara badan in dawladdu rabtay in doorashada musharaxa ila tartamaya oo soo baxo ma garan karo sababta riisanka ay tahay sababta waxa weeye marna nin weyn oo oday baa ahaa oo aragna badan leh oo soo maray waxaan ku jiray shantii oday u horeeyay oo maamulka 91kii wax ka qabtay maamulkan North East la jiray gobolada waqooyi jambarka ana asaasay gudoomiye hore ana noqday ganacsataan ahaa nin injineer ahaa waxaan markaa meesha imaanayay oo saas nasiib wuxuu yeeshay qof aqoon leh oo wax ka bedeli kara banaankana wax ka soo bartay laakiin nasiib daro waxay noqotay inaan saa loo garan oo waxa weeye la isku dayo inaan waxa weeye cidii dooran lahayd la joojiyo waxaan markaa soo jeedinayaa waan dacwad ka qabaa guddiga doorashada khilaafaadka loo soo daray guddiga cadaaladda ma ahayn waxaan madaxweynaha weydiisanayaa waxaan ku adkeenayaa in guddigaas khilaafaadka la bedelo
doorashadana dib loo dhigo si doorasho xalaala oo dadka deegaanka ah oo dadka waxa weeye taxi baayirka ay maartay wakiilka ah in la keeno haddii kale waxa jira teoriya leeysa no representation no taxi buyer no taxation qof waxa weeye aan wakiil meel ku lahayn haddii qof cashuur bixiya ma noqonayo adduunka iyo caalamka waxaan u sheegayaa international community donorska in doorashada beri loo dhoodhoobayo oo la rabo inay beri ka dhacdo boosaaso inay yihiin midii dadkii deegaanka maslaayay inay yihiin dad la soo dhoobay oo dowladdu gacan ku lahayd dadkii dadka maslahaana ayan jirin waxa weeye international community weydiisanaynaa inay ilgaaro yeelato haddii saa loogu maro waxaan si rajaynayaa oo aan ku calulfiyoobahay inay beri doorasho dhacayn in madaxweynuhu fahmi karaayo maxaa yeele haddii saa ku dhacdo dib badan baa jirta waxa weeye dadka qabaa'ilka boosaaso degan oo ku jira deegaanka boosaasood waa 16 qabiil maanta waxaa shir jiraad isugu yimi oo shir jiraad qabtay in ka badan 13 qabiil oo waxa weeye cabanaya weli waxyaalaha qaarkood haddaan soo qaato aan weligay ilaawi karayn xubnaha waxa weeye laga bedelay waxaa ka mid ah nin aniga campaigner ahaa oo xildhibaan ahaa oo ila shaqeynayay oo nin mutacallim ahaa jaamac cilmi baa la dhahaa ninkii saacadda u dambeysay oo doorashada dhici lahayd baa layidhi nin kalaa kugu haysta oo reerkaaga ninkaa waxa u saxiixay 11 nabadoon waxa u saxiixay beeldaajihii beeshiisa wixii hoosee ku dhacday ciidamo ma jirta waxay dadkaa keenso dib uu u noqday intii buu keenay beeldaajina telefoon buu waxa weeye gudda uu sheegay ninkaa waxay isnayn 100% waa la iska dhaafay ninka waa la reeb haddii taasu dhacday waxaa dhacday marka in ninkii iyo waxa weeye iyo ciddii u dhaweyd intay xanaaqaan ninkii xildhibaanka lagu bedelay ay shalay khatar isgeliyeen oo bistoolad intay qaateen ay halis geliyeen inay isku dhacaan labadii jifiyood wax yar buu kaga baxsaday bistoolad madax kaga qaraaceen saan maqlay anoo ma joogin baabuurkiisina waa ka qaadeen wallahi waa la xiriirnay guddiga khilaafaadka waa la xiriirnay waa u tagnay guryahooda aan u tagnay waa u sheegnay xubno inay si cadaalad ay ku dhacdo waana ka ballan qaaday waxba in ka xumaan maayaan baa la yidhi waxaan xusuustaa nin xubinteeda ka mid ahaa baa waxaa la yidhi weli dadkaan laga tiro badan yahay ah oo waxa weeye aan lahayn qabaa'ilka hubaysan aan ahayn ba waxaan maqlay ninkii waa la bedelay anuu waxa weeye waa weydiiyey waxaan soo ogaaday waxay waxba kama jiraan gobolkaa jooga haddii aan la soo dhejiyena ninkaasna waxa u dhigay isagana 8 nabadoon iyo waxa weeye waxgaradkoodii haddii la soo dhejiyena ninkii waxa lagu bedelay nin wasiir ku-xigeenka maaliyadda xooghayn ah oo laba sharciba mar shaqaale weeye oo low number 7 uma ogola in qofkaas noqdo marna cid u saxiixda ma jirto weliba intii loo wada yeeray labada qof intii loo wada yeeray baa kana wuxuu keenay nabadoonada oo dhan kana cidna uusan keenin laakiin kii kala soo baxay marka waa jirtaa waan kala hadalnay wax laga qabtana ma jiro xildhibaanada waxaa doortay beelaha laakiin waxaa samaynaysaa brogramkaaga waxaa samaynaysaa waxaa qabanayso waayo aragnimadaada marka qayb baa waxay kuu noqonaysaa adiga maaragtay simbatiya ku haynaysa qayb baa kula jeclaanaysa inay codka ku siiso waa la kala yaqaan waa waxa lagu kala baxo qaybteydii waa la kala yaqaan oo bersadeeda fadhiday oo taargetka aniga ahayd oo qabaa'il kala gedisan ahayd baa 5 xubnood oo ka mid ah baa iga maqan marka haddii musharaxii iga horeeyay 2 xubnood ay dheeraa 2 xubnood oo aan xalaal ahaynna ay saayid u ahayd 5 xubnood aanu aan lahaana 5 xubnood si loogu bedelay hadda marka waxa weeye waa odow jeega jiica ka dhigay mood meesha gabagaba ka dhaaf gabagabadii haddii sidaan ku socdaan doorashada bari loo manday inay qabsanto ka qayb galaysa ka sharaxan doorashadaas si soo maya doorasho ma aha waana xataa maanta dhaartii ma tegin kama qayb gelin waa qaadacay haddii saa ku marto hadda cawaaqibkeeda waxa weeye waa wixii ka soo bixi anuu dhibaato ma qabo anuu company may flower la dhaho baan waxaan ka general manager waxa wiilin waa ka ah anuu waa noqonayaa meel aan ku noqon lahayn mood laakiin waxaan ka naxaa dadka danyarta iyo dadka waxa weeye maatada iyo dadka waxa weeye xuquuqdooda ka maqan tahay dhibaatada meesha hayso
dadkaasaan ka naxsanay maahay anu nin dhib qaaba maahin laakiin waxaan rajaynayaa inay dhicin waxaan rajaynayaa dadkii caqli weli Puntland waxay ahaan jirtay markii khilaaf dhaco caqliga shaqayn jiray ismada shaqayn jiray maskaxda fiican ba soo noqon jirtay waxaan u maleynayaa inaan biri doorasho dhacayn dibna loo dhigi doono maxaa yeelay xalaal maaha dhowr iyo 10 qodob baan ku haynaa ee xalaal ku ahayn waxaan isku dayaynaa inaan la aadno gudoomiyaha baarlamaanka waxa maqnay inuu saak soo galay oo u tageynaa maxkamadan wala aadina hadday tahay waxaan maqlay markaan Mareykanka joogay ku dayo Puntland hadday ku dayo Puntland tahay xuquuq waxba soo bixi doona waqti wala arki doona hadday ku dayo Puntland dhalanteed tahayna wala arki doona oo sharci waanu shaqeeya qofna wuxuu rabo sameey karo doorashadu deysaa u gashay kama qayb galay absolute ka qayb galay waa in dib loo dhigaa waa in guddiga khilaafaadkana la bedelaa oo daacada la keenaa ee gudoomiyaha baarlamaanka waxaan weydiinayaa oo ku adkeynaya hore gaari mayno waa hore waxa weeye 12 sano oo dictatorship baynu soo martay waa ku burburnay waxaan weydiinayaa in sharciga wixii sharciga iyo wixii dastuurka isaa ka wakiila haddii wixii aan sheegaynay run tahay inuu soo dhex galo inuu wax ka qabto maxkamadaha haddaa tii kuwa shaqaynaya waxa loo baahan yahay inaad soo dhex gashaan waxa weeye labada xubnood oo saayidka oo lagu daray xalaal ma waxa taa ka daran oo haddan maqlaayay maalmahana laba xubnood oo kale waa lagu darayaayo 1 baa laga dhaayay anuu ma hubo laakiin marka walka suuqa marka meeshii wax iska noqotayba waa qofba markuu riyoodo inuu wuxuu rabo iska darsanayo ama qofku wax la jecel yahay waxa uu daraayo taana horumar lagu garamay dastuur bayn leenahay aan ku heshiinay dastuurku waa in la ixtiraamaa haddaan la ixtiraamin waxay noqonaysaa waxa la jamiyay qaynuunkii iyo wixii heshiiskii ummadda ku heshiisay mar labaad ma celinaayo mar saddexaad baan ku celinaya madaxweyne gaas anoo waxa weeye markaan ka imaanayay banaanka dadka sympathy oo hayay ama niyadda fiican oo hayay ama difaaci jiray oo nin aqoon-yahan oo professor oo iyo sidoo ugu doodo dastuurka federaalka uu adag yahay waxa loo baahan yahay Puntland inuu ku adkaado waxba tarimayso federaalkan ku adkaay haddaan lagu adkaan kan gudaha arrintaas beelow ka hadleen oo maanta media laga sii daayay haddaan wax laga qaban oo doorasho aan dib loo dhigin wixii ka dhaca oo dhibaato ka timaada waxa mas'uul ka ah wixii aan waxba ka qaban oo aan joojin doorashada dib ha loo dhigo waxa weeye guddiga khilaafaadka aan ka bedelo saasay xalaalku noqonaysaa waa jeclahay Puntland ma jeclin dhibaato ku dhacdo mana jeclin wax xaq darro ah iyo sharci darro ah inay ku socoto. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.